حزبك عدالة دي وذا جرك مركان هل كان ديلا فديو حزبك أوصل رأي حلال كيس وزير هذا يو حبناها كلي حزبك دمانتين وسلامتين السلام عليكم عاوي وهبين وين dadka Soomaaliyeed iyo taariikhdiisana u weyn isgoys weyn oo 34 sano shaqo soo socotay kala wareegeedii way shaqadaas diyaar ma loo yahay xisbigu diyaar ma yahay caaway waxaa la daahfuraya oo madaxda qaranka iyo xubnaha xisbiga iyo madaxda dawlad goboleedyada ay daahfurayaan xisbigan weyn oo weyn hadda ka hor baa weyn oo weyn la sheegay ilaahay baa weyne laakiin caaway xisbigii weynaayo soo tukubayay muddada dheer caawu jug soo yiri xisbigan dad baa waxay yiraahdeen maalmahan oo dhan ku jiray suuqa xisbiga hanti wadaagga ayaa lagu dhawaaqayaa xisbiga hanti wadaaggu xisbi kale ma ogolayn marka koowaad annaguna waxaan leenahay nimanka saaxiibadeena warkaalaya xisbi furta kaalaya tartama ayagaa wada xisbiga hanti wadaagga marka kuwa xisbiga al-shabaab wadana waa jiraan oo xisbi oo dhan aan ogolayn ayaguna way jiraan xisbigan marka runtii waxaan u mahad celinaynaa dadkii soo diyaariyay aniga 2013 baan xisbi samaynay meel dhexe xisbiga UPD uga soo biiray haddana habeen dhaweeta waxaan goobjoog u ahaa ayadoo xisbiga UPD magaciisa la bedelayo oo loo bedelayo xisbiga cadaaladda iyo wada jirka magacyadu waa wasiilo way hadaf maahan laakiin mar walbaba axsaabtu way isku biirtaa way isku timaadaa muddo 12 sano ayaan ku taamayay jeclaa dalkan inuu xisbi u tallaabo oo ka tallaabo musuqmaasuqa uu ka tallaabo is-adoonsiga 4 sanaba dadkeenna waa la geliir gareeyaa madaxdeenna ma ayaan dhexdaas aan sheegay madaxda hortooda codka lagu tirinayo psychologiyan bay u xanuunsanayaan markii maalin kasta la yidhaha hebel hebel waxa tuuq u leeyahay markuu magac kala maqlo sanad walba niman xanuunsan baa noo yimaada laakiin halkan shacabka Soomaaliyeed baa codaynaya madaxweynaha iyo murashax waaba iska seexanayaaba wuxuu soo toosiyaa natiijadii oo lagu dhawaaqay ama uu helay ama uu heli waayay dad baa marka waxay rabaan in la isku celiyo meeshaas in la isku celiyo dawlad goboleedyada dibka lagu arkay nin galab yimid xafiis madaxweyne dawlad goboleed oo casho seegay oo yiri biris wax ma soo gali karo haddaan caaw halkaan fadhin oo 24 saac kursi ku fadhiyo sugayay kaliya inuu qaabilo madaxweyne dawlad goboleed maantay is-adoonsigaas waa dhammaaday marna oday dhaqan ayaa waxa loo ahaa madiidin oo loo raasan jiray marna madaxweyne dawlad goboleed iyo madaxweyne qaran iyo ra'iisul wasaaraha xafiisyadooda la isku dili jiray abiyuus badan baa dhacay cidda rabtay inay u celiso halkaas dalka cidda rabtay inay u lugu qabato runtii kuwaas maxaan leenahay dadka caawa halkaan fadhiya iyo dadka isdiiwaangeliyey ee 300 kun ku dhow gobolka banaadir iska diiwaangeliyey gobolladana diyaarka u ah kuwa raba inay nagu hayaan meeshaas maxaan leenahay maya oo xoogan baa la rabaa maya xoogan maxaan leenahay dadkan waa diideen marka 4 nin oo halkaan joogta sanad walba dawladda carbeed saf ugu jira xogaa yaroo lacag oo sandureertaha ka soo qaata yiraahda dalkan halkaas lagu hayaa waxaan rabnaa
5 مليون 6 مليون 8 مليون intay rabtaba ha noqoto inay codeeyaan oo masiirka madaxda dalka ee ayagu go'aamiyaan oo xildhibaanada qaranka ayagu go'aamiyaan oo dawlad goboleedyada ayagu go'aamiyaan maalinkaasaan isla xisaabtanka dhabta uu imaanayaa maalinkaasaan dalku guulaysanayaa guulaysta xisbiga cadaaladda iyo wadajirka guul waxaa la rabaa axsaabta markaan naqaano aan ku jirnay madaxdu markay timaado xamaasad baa jirta kolley sloganiskii weli lama abuurin laakiin sloganisay axsaabtu kala yeelan doonaan marka caawa waxaan ku sii joogaynaa cadaalad wadajir markii madaxweynuhu hadlo ama cid kala hadasho cadaalad wadajir waaye waa mahadsantiin